wuxuu ahaa maxbuus lagu qabtay dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana uu sidoo kale ahaa beerwada aan aqoon lahayn, waxaana uu soo saaray gawaadhida nooca raaxada ee loo yaqaano Lamborghini oo ah kuwa dunida ugu qaalisan waqti xaadirkan. haddaba intaynaan gudagelin barnaamijkeena, fadlan like saar muuqaalka si uu gaadho kuwa sidaadoo kale wanaagsan. mahadsanid. Ferruccio Lamborghini waxa uu dhashay 1916 waxaana uu ku dhashay magaalada dadka degan ay yihiin beeraley. Magaaladan uu ku dhashay waxaa la yidhaahdaa Reynosa oo ku taalla waddanka Talyaaniga ee ku yaala qaaradda Yurub. Ferruccio Lamborghini waxay waalidkiisu ahaayeen beeraley, waxayna beeran jireen canab ay khamri ka sameeyaan, waxayna halkaa kala soo bixi jireen nolol maalmeedkooda. Waxay waalidkiisu bareen Ferruccio markii uu yaraa sida ugu shaqayn lahaa beertooda, sida qodideeda iyo dalag ka soo goynteeda, oo ay ku tababari jireen intii uu yaraa. Inkastoona Ferruccio aanu shaqada qodista beeridda jeclayn, haddana waxa uu aad u jeclaa inuu isku dayo inuu hagaajiyo markay ka xumaato cagaf-cagafta beerta ay ku qotaan. laakiin nasiib xumo beertoodii waxay ugu dambeyntii noqotay mid kacday, waxayna noqotay mid khasaartay. halkaasna waxay ku waayeen ishii ugu weyneed ee dhaqaaluhu ka soo geli jiray qoyskooda. sannado kadib, Ferruccio waxa uu bartay cilmiga makaanignimada ah ee hagaajinta baabuurta iyo cilad ka saaridooda, waxaana uu ku bartay macad ku yaala waddanka Talyaaniga ee loo yaqaano Fertelli Technical Institute ee u dhow magaalada Bologna ee isla waddanka Talyaaniga. sidoo kale waxay taariikhdu ahayd 1940kii markii uu ku biiray ciidamada cirka ee waddanka Talyaaniga, waxaana uu halkaa ka shaqayn jiray xerada gaashaandhigga ee waddanka Talyaaniga, waxaana uu ahaa mid dayactira baabuurta dagaalka ay lahaayeen dowladda Talyaaniga. 1945kii markii uu dagaalkii labaad ee adduunka bilaabmay, waxa uu waddanka Talyaanigu noqday mid laga guulaystay, waxayna kooxdii Allied Powers oo ay ka mid ahayd waddanka Britain ay ka soo qabteen maxaabiis badan waddanka Talyaaniga. waxaa maxaabiista laga soo qabtay dagaalkii labaad ee adduunka ka mid ahaa Ferruccio, waxaana dhammaantood la geliyay xabsi. intaas kadib, markii ay ogaatay dowladda Britain xirfadiisa ku aadan dayactirka baabuurta, waxay ka soo saareen xabsiga Ferruccio Lamborghini, waxayna soo qaadeen inuu hagaajiyo baabuurtooda. hal sano kadib waxay dowladdii Britain u ogolaatay inuu baxo, waxaana uu ku noqday waddankiisii Talyaaniga. kadib markii uu ku noqday waddankiisa, waxa uu guursaday gabadh lagu magacaabo Clelia Lamborghini, laakiin nasiib darro waxay xaaskiisii ka geeriyootay 1947kii, waxaana keliya u dhashay wiil lagu magacaabo Tonio Lamborghini. intaas kadib, waxa uu ahaa Ferruccio mid aad ugu mashquulsan shaqadiisa makaanignimada, halkaasna uu ku hagaajiyay baabuur badan sida cagaf-cagafta iyo baabuurta loogu talagalay xamuulka. waxaana waqtigaas geerash ka furtay magaalada Vicenza ee ku taalla waddanka Talyaaniga. isla waqti yar kadib, waxa uu waddanka Talyaanigu u baahday inuu kor u qaado dalagiisa beerista si uu uga soo kabto khasaarihii ka soo gaadhay dagaalkii labaad ee adduunka. inkastoo aanu waqtigaas waddanka Talyaanigu haysan qalab fiican oo dhammaan wixii hantiya uu haystay ay kaga baxeen dagaalkii, hadda wuxuu Ferruccio bilaabay inuu isku dayo inuu dadkiisa ka caawiyo xagga beeraha. waxaana uu Ferruccio bilaabay inuu dadka cagaf-cagaf uga sameeyo gawaadhidii dagaalka la isku adeegsan jiray burburkoodii, waxaana uu sameeyey isla waqtigaas cagaf-cagaftii ugu horreysay ee uu ka sameeyey burburkii gawaadhida dagaalka. intaas kadib, waxa uu Ferruccio aasaasay company lagu magacaabo Lamborghini Tractor, waxaana uu aasaasay company-ga 1951kii, waxaana uu company-giisu si dhaqso leh u noqday mid aad looga yaqaano guud ahaan waddanka Talyaaniga. hadda waxa uu Ferruccio u dabaaldegayaa guushiisii, waxayna guushiisu u suurtagelisay inuu iibsado noocyo kala duwan ee gawaadhida sportska iyo nooca raaxada, waxaana waqtiga ahaa gaadhiga ugu fiican xagga sportska iyo raaxada gawaadhida loo yaqaano Ferrari. waxaana uu iibsaday gaadhi noociisu yahay Ferrari GT 250. Ferruccio Lamborghini waxa uu ku arkay cillad xagga farsamada ah gaadhigiisa Ferrari-ga. waxa uu cilladda ku wargeliyey Enzo Ferrari oo ahaa mulkiilaha baabuurta Ferrari, waxaana uu kala kulmay mulkiilaha Ferrari hadalla aan ku habboonayn sharaftiisa. waxaana ka mid ahaa hadalladii uu ku yidhi Enzo Ferrari: waxaad tahay darawal cagaf-cagaf, sidoo kale waxaad tahay beerwade, ma eedayn kartid gawaadhideeda, waxay yihiin kuwa ugu fiican dunida. Ferruccio Lamborghini waxa uu waqtigaa go'aansaday inuu tartan la galo Ferrari, waxaana uu isla waqtigaa bilaabay inuu furo shirkadda gawaadhiga sportska iyo kuwa raaxada lagu sameeyo, oo xataa waxa uu shaqaaleysiiyey injineero ka tirsan shirkadda Ferrari. waxaana uu shirkadda bilaabay sanadku markuu ahaa 1963kii, isagoo shirkadiisa cusubna dhul uga dhigay beertii ay lahaayeen. isla 9 bilood kadib, waxa uu Ferruccio soo saaray gaadhigiisii ugu horreeyay ee nooca raaxada, waxaana ugu magac daray Lamborghini 350 GT.
waxaana uu gaadhigan lahaa 2 kursi oo keliya, waxaana uu halkaa ka bilaabay saamaynta baabuurta noocyada raaxada leh. Sidoo kale Ferruccio waxa uu caddeeyay dhigiisa Ferrari inuusan hayn beerwade oo keliya, balse inuu yahay nin caqli ku darsaday xirfadiisa makaanignimo. Sanado badan kadib, Ferruccio waxa uu noqday mid barwaaqaysta, waxaana uu bulshooyinka xiisay ee baabuurta ka helay sumcad iyo sharaf ku aadan sida quruxda badan ee uu nashqadeeyey. Waxaana uu baabuurtiisa calaamad uga dhigay dib aad moodo inuu dagaalamayo, waxaana uu tartan adag la galay dhigiisa Ferrari oo iyagu ahaa kuwii waqti xaadirka ugu sumcadda badnaa. Ferruccio waxa uu horraantii 1970kii iibiyey shirkadiisii ugu horreeyay ee samaynta cagaf-cagaf, halkaasna uu kala kulmay dhibaatooyin dhaqaale oo xataa xilligaa Ferruccio waxa uu ku sigtay inay shirkadiisu kacdo, waxaana sidoo kale shaqaalihiisa soo watay dhibaato dhaqaale kadib markii hoos u dhac uu ka yimid adeegsiga cagaf-cagaftiisa, taas oo lala xiriirinayo colaado dagaaleed oo ka jiray wadamo badan oo u diri jiray cagaf-cagaftiisa. Hadda Ferruccio waxa uu kaliya xoogga saarayaa samaynta baabuurta noocyada raaxada leh, waxaana uu soo saaray Lamborghini GT 400 iyo Miura B400. Gaadhigan waa kii ugu horreeyay ee nooca sportska ah ee xagga dambe lagaga xidho jinkiisa. Fikraddanna waxay noqotay fikraddii ugu fiicneed ee uu sameeyay Ferruccio. Sidoo kale waxa uu Ferruccio Lamborghini soo saaray gaadhiga Countach. Waxa uu gaadhigan noqday mid ay dadku aad uga heleen, waxaana uu noqday gaadhigan midka loogu hadal haynta badan yahay taariikhda gawaadhida. Intaas kadib, waxaa Ferruccio soo watay dhibaatooyin badan oo ay ka mid ahaayeen sicir bararkii shidaalka ee caalamka ka dhacay 1974kii, waxayna arrintani ku sababtay jahwareer maadaama ay gawaadhidiisu ku shaqayn jireen xaddi shidaal ah oo badan. Waxaana uu waqtigaa ka iibiyey 49% saamigii uu ku lahaa shirkadiisa, waxaana uu ka iibiyey René Lammert oo ay ahaayeen saaxiibo. Waxaana uu xilligaa qabtay Ferruccio ganacsi kale oo uu ku samayn jiray alaabta elektarooniga. Sidoo kale waxa uu xilligaa horumariyey oo uu dib u noqday shaqadii aabihii uu qaban jiray ee ahayd inay soo saaraan khamriga iyagoo adeegsanaya cinabka beertooda ka soo baxa. Haddaba ugu dambeyntii Ferruccio Lamborghini waxa uu dhintay wadne xanuun, waxaana uu ku dhintay waddanka Talyaaniga isagoo jira da'da 76 sano, waxaana uu dhintay sanadku markuu ahaa 1993kii. Waxaana hadda ay shirkadiisa Lamborghini noqotay shirkadda ugu saamaynta badan qarnigan 21aad ee xagga baabuurta. Saamiga dhaqaalaheeduna waa $11 bilyan. Sidoo kale 2019kii waxaa gawaadhida Lamborghini qiimahoodu ay gaadheen halkii ugu sarreysay, waxaanay gaadheen $11 milyan, halka gawaadhida ugu jaban shirkadda Lamborghini ay yihiin $251,000. Sidoo kale waxay gawaadhida Lamborghini ay ka khatar yihiin gawaadhida Ferrari-ga ah oo iyaguna ah gawaadhida ugu saamaynta badan qarnigan ay ku jirno. Sidoo kale waxay shirkadda Lamborghini soo saartaa sanadkiiba qiyaas ahaan 400 oo gawaadhi, halka 2011kii ay ka soo saartay gawaadhi gaadhay 1700. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. Fadlan la sii wadaag asxaabtaada adigoo sii share garaynaya. Mahadsanid.